السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد سلامني walaalaha daawan doona muuqaalka meel kasta oo joogtaan waxaan joognaa magaalada Seattle gobolka Washington maanta tacsi ayaa inoo taala waxaad ogtihiin cudurka coronavirus inuu caalamka farabaan ku hayo wali marka qofkii ugu horeeyay ayaa magaaladeena ku geeriyooday ilaahay u naxariisto nin oday ah oo magaalada laga yaqaan ahaa oo adeerkeena markii duugtii hadda soo dhamaatay alxamdulillah marka waxa ila joogo walaalmayow oo kamid ah akhyaartii maanta duugta tagtay oo qabriga tagay oo wax ka soo duugay marka walaalmayow muuqaalkiisa ma soo gelin doon insha Allah codkiisa bas maqli doontaan oo ila jooga hadda marka wuxuu inooga sheekeyn doonaa insha Allah tacaala bal adeer sidoo u dhintay iyo meesha lagu soo duugay iyo qaabka duugta u dhacday ma soo dhow waan dhawahay xasan sani walaal maanta waxay ii tahay ma aragtay maalin aad ay u fiican tahay oo kanaalka soo galo marka insha Allah billahi kareem wixii ilaahay oo uu ka siino aan ku hadlo doonaa insha Allah waa ma santa marka adeer xanuunka meeqa maalin hayay adeer runtii wuxuu ku dhacay xanuunka jamcihii aan soo dhaafnay kii ku horeeyay marka hoogaha qofa yar baan ka dareenay markii dambana تقدرتي مركا وعني قندم هاينين وحكى لما قوين قنفع يربو قوي مركا هدو قنفع لقوة انتظر لا ودوي انتظر السيئة دهان انتظر لو قد دالاي مركا سبتدي يو أحدي با معرت هوغا معرفتي أتكيس هوغا إنو حرم بالله ومي مركا اسكدبنا إن شاء الله سنينتي با مركا تقتركي مركا وعنينا هوغا معرت ذلك hoogaha maarta inay maalin walba maalintii ka dambayso uu ku sii daray marka sidee isbitaal uu ku jiray mise guriga lagu hayay karantiin ahaan maya markii hore sarta guriga laba bari buu joogay maalintii saddex u ahayd 10 o'clock baa qolada caafimaadka u yeernay anagana waa ku warhaynay oo maarta intadii baa u sameynayni ma aragtay mar walba waa loo tagay waa lagu warhayay marka suuxii asneenti marka hoogaha maaragtay aad buu maaragtay codkiisa oo soo darsaday marka uu soo darsaday ma aragnay marka qolada gargaarka u wacnay qolada gargaarka marka uu wacnayna way qaadeen dhakhtarka geeyeen marka duugtii ka hor waxa sameynay maaragtay isniintii marka la qaaday galabtii markii la gaaray odaygii waa ku soo daray markii dambana waxaan soo noo sheegeen qolada gargaarka ina ICU oo geynayeen markii aan wacnaan mar walba waxaan isku xir jirnay telefoonka marka laakiin hadalkiisa waxaan ugu dambeeyay markan la qaaday markii saan loo qaaday markii isbitaalka la qaaday kadib oo neefti baa xirmo gashay wixii dhan baa lagu xiray qalabkii baa lagu xiray marka kadib telefoonka baa waxaan ku wareysan jirnay qolada nurse-ka laakiin ugu dambeyntii markii oo isniintii baa la geeyay talaadada iyo arbacada buu ku jiray khamiistii oo ku sii daray jimcihii waa isla hadalnay waxay dhaheen odayga mar walba wuu ku sii daraya jimcihii marka waxay dhaheen dawooyinkii aan siinayno dhan hoogaha maaragtay waa caawin waaysan yihiin marka waxa u qaban karna ma lahay dhaheen marka daawadii siina waxa u tarweysay xanuunkina waa badanaa markaas anagu markaas saas dhahnay marka waxaan dhahnay ma cishin karnaa ma la celinayo dhaheen laakiin maaragtay inta ku soo booqan kartaan marka nurse kalkaal si fiican baa joogtay oo maaragtay takhaatiir aad si fiican u wanaagsan oo nolol dhaqmeen marka aan weydiisanay cudurka corona qofka qabo in kastoo loo tagaynin laakiin marka anigu weydiisanay odayga ma arki karnaa markaa dhahnay waa inaga ogolaadeen waana meesha waan u tagnay meesha qalab baa noo xireen meesha dadka lagu haaya iyo meesha takhaatiirka joogta waa different waay nurse baa meesha oo ku jira qofka xanuunsan la jooga nurse-kana sida ku aragteen ma aragtay qalab baa u xiran dhammaantiis anagan markaan codsanay waan u soo celiyeen waa u imaan kartaan aan yireen takhaatiirtii markaa imaaneen takhaatiir iyo anayta meesha waxaa iskugu imaaday kuwa oo familiyada la shaqeeyaan takhaatiirtii iyo familiyada u dhexeeyaan iyo patientka gabar baa meesha nooga imaatay aad u fiican oo noo soo dhaweysay sidoo kale takhaatiir fiican baa noo soo dhaweyn si fiican baa noola hadleen أنا أعرف ما هو قلنا مركا أتقني والله مركا أتقني حالتي ساعات يمرق بالهاد ولب مركا فيرني أنا نفك جرنا أمراني
laakiin qof uu imaaday iyo qof kale ma kala garanayo qof maya wax garanay ma lahana waa miir dabool ma markuu geeriyooday sidee loo dhaqay sidee ugu yani horta markaan meesha ugu tagnay oo dhakhtarka aan la kulannay waxaan noo ogolaadeen inaan u galno odayga meel buu ku xiran yahay asiga iyo neerska maraay oo kale ah albaabkan markaan galaysa intaasoo control buu leeyahay waxaa noola xiray koofidii oo madax la geshinayo marka neefta hawada bannaanka ma qaadan kartid adi tan asaga ku soo baxday baa galaysaa taas baa qaadanaya marka meeshaan galnay hawaa qur'aan baan ku soo akhrinay waan ku soo baxnay kadibna dhakhaatiirtii aan la kulannay dhakhaatiirtii markaan la kulannay marka waxaa dhaheen daawooyinkii siinayno adeer waa qaadan waaye marka waxaan rabnaa ay dhaheen maxaa tala ah marka waxaan dhahnay haddaad dawooyinkii qaadanaynin oo asigana oo saan yahay waxaan rabnaa dhahnay beebka inaan nologa furo markaas waxay dhaheen haddii idinkoo joogta horey ma ugu furi karno laakiin haddaan rabtiin inaa soo duceysaan oo maaragtay diintiina waxaa tahay qur'aanka soo akhrisaan rabtaan u taga oo maaragtay haddana mar labaadaan siinayna mar labaad ba haddana ku noqonay runtii markaa oo galaysid kowda galaysid mar walba gashid qalab gaar ah baa lagugu xirayaa kuwii hore waa tuuraya haddana markaa ka soo baxdid haddana mar labaad markaa ku noqonaysid qalab kale baa lagu sii xirayaa marka saasay ahayd dee horta qalabka meesha aan ku isticmaalnimo maba tilmaami kara qalab badan buu ahaa halaha meesha joognay markii labaadna waa ku noqonay ilaa iyo noola gashay weli gabadha oo maaragtay kaalkaalisa ma ahaane familka u shaqeyso maaragtay familka iyo dhakhtarka dhexdooda ku shaqeyso gabadhaas baa hataan waa nolol geliyey waxaan ku jirnay ilaa iyo 40 minutes baan ku jirnay ilaa mashiinka hoogaha maaragtay aridis oo ku yaraad ilaa batriga ku jaajir gareysan miskan dabarku ku saaran yahay marka intaas baan ku jirnay qur'aan baan ku soo akhrinay waa u soo duceynay tawxiidka u soo qabanay waan ka soo baxnay qalabkan nolol fur baan dhahnay markii meesha oo nolol fiican maaragtay qofka anaga waxaan u maleynay markaan fiirinay inuu dhintay laakiin beebka ku xirnaay baan nuuxsanayay marka waxaan dhahnay qalabka waa nool aan dhahan laakiin dawooyinka shaqeeyaan ka fur baan dhahay markaan ka furnayna wax yar kadib adiga afar saacadood kadib wayna soo waceen oo odayga waa geeriyooday baan dhahay marka meesha joognay oo maalintii meesha aan tagnay isla markaa dhintay isla markaas waxaa la hareynay qolada oo qawrooyinka waxay dhaheen maaragtay iyo nin aad iyo aad u fiican oo maaragtay wanaagiis intaan kusoo koobi karana oo maxamed sheekh la dhahaa asigaa la xiriirnay asiga buu markii dhakhaatiirtii iyo maaragtay qolada qawrihii iyo wixii dhan la xiriiray marka waxay dhaheen waa la soo qaadayaa war si u dhaqso badan baa maaragtay waxay noo fudaa inkastoo weekend day lagu jiro oo Mareykanka oo maaragtay weekend day oo maaragtay dhakhaatiirtii iyo howlaha la dhameyn kareen haddana maaragtay si oo aad iyo aad aan soo koon karba naloo soo dhaway janaasada markii lagu tukaday masaajidka warkiisa ku tukateen maanta waa soo galowsan amaano marka basically masaajidka gudihiisa lama soo gelin Soomaa banaanka ama masaajidku waa xiran yahay baawarka oo gaaray oo maaragtay midkooda meeshuu soo istaagay markuu soo istaagay banaanka soo dhigtaan dhahan ma anagu waxaan dhahnay banaanka ma dhigayno gaarigu waxa u dhigtaa sida oo maaragtay qiblada u yaalay sidii baa loo toojiyay asagoo meesha jooga baa ku dukanay kadibna waan qaadnay laakiin waxaana siiyaan 10 qof ina oo janaasada raacdo laakiin ka badan way diiday laakiin aniga waxaan ahaan 8 qof ahaan marka waxay dhaheen marka oo 10 imaado 8 gaariga ku dhex jirto marka oo 8 dhamaat 10 kaas markay daalaan afar habaxdo afar soo bedesho sidii baa heedan laakiin meesha godka waxa joogayeen adiga 10 ka badan lama ogola kan meedka qaadayna oo maartay gaarin waa noola joogay ilaa iyo aniga ku aasno oo wixii dhan ka dhameeyay qabri markii la dhigay say u dhigtay qabriga sida aad qofka loo dhigay baa u dhignay gacmaha ku qabanay laakiin waxa waaye adeer markaas wajigiisa ma furno qofka ma furno ilaan markii hore waan sheegay box maaha waxa dhowr bacba ku dadan yahay dhowr bac ilaan waxaan qofkan maaragtay corona waay marka dhowr bacba ku xiran yahay بعد كل سنة بعد كل وين باجرتها مركب أو جسال قونا قلنا عفمات كانوا عن نسوا تقتريين وحيد هنا وحبة ما قوا مارتي كيم كذي أردن هاس باجرتها إلا هودي سقفكم مركب سو جاري سبا مارتي
أو خطر بالته لكن قفك ما أركيست لكن مقلهان بناء دين إنه يهوى دريمة بعد بو ربك يهي بعدك أو ما أرتي حتى ما أرتي لو قف كرتة أن دلائنين أذيك أحبا جرتا تسبا taasal la gelin horta waxaan leenahay Allahu naxariisto adeer maanta waa markii ugu horeysay oo qof uu naga dhinto magaalada Seattle dad badan xanuunka nooga dhacay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caafiyo walaalaha muuqaalkan daawanayna waxaan ka codsanaynaa in adeerkiin u soo duceeyaan waa qofkii ugu horeeyay oo naga geeriyoodo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada ha geeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada firdawsa ugu bishaareeyo waxaan ognahay xanuunkan waa xanuun halis ah qofkii ku dhintan wuxuu la mid yahay shahiiday qoys xanuunkan waa xanuun aad iyo aad ugu dhacaya xabadka iyo neef mareenka ku dhacaya marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada ha geeyaan leenahay idinkan waxaan ka codsanaynaa inaad isku duceysaan adeerkeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.